تابر برتالله وأرنتتن وده هذا اللذا أن لا يلني سوماليلاند شر بلوة يا سادوكتين حين بلغوا قبطي هذا بلوة يا ماشا كسوب حي هذا العادي عادو في عن يدود عادي عادو في عن أو أن كجوض هذا إنه معمول كسوماليلاند دنا هم نقد حية هي أنت بدنا أنك قارو لنا هذا الكاس هو نوبلا بمي وريلا دفاديان كعلني وشينه هيكون مهما بوحيته سفر صدح كنوا السنة قاطع هل طلابو كبلابنا هل طلابو صدح هل هو كل سنة سفر كقاضني بلوه صدح سيفي عم بنوق بلابني وأنا أقبل سنة السفر كله خاتمه iyo Somaliland inay geli doonaan dangaaray khaatuma ka wadataa ma ay jirto khaatuma waxa loo doortay in ay matasho ummadda Soomaaliya sanaaga iyo cayn ku nool iyagii un bayna matashaa waxay la dolo tagtayna waxay meel gooniya ama beel ama jabsin kamida reer khaatumana uguma tagin inay danahooda ay ka doodo umana tagin intii loo diray sidii la inooga bartay in badan oo meesha ama joogta ama hadda la leeyahay dhiilahoodayba u buuxsadeen dana gaara oo loo tagayana ma ay jirto mid ummadda dhulkan ku nool oo beel gooniya ama jabsin gooniya loogu talagalayna maaha mas-uuliyaddaasa khaatumo saaran iyadayna dadkeedu ay u dhiibteen ammaanadaasaa loo hayaa iyadana wixii ka yimaada mas-uuliyaddeedaanu leenahay annaga xaqayaga lama gola tegayno waxaanu rajaynaynaa wax badan baa nagaga xidhan wadahadalladaasna aanu rabno in xal waara oo nabada la wada gaadho hadda dantayada qura maaha waxaan ka hadlaynaa waa dantooda iyo taayada iyo danta aagan oo dhan waa nabadda geeska Afrika oo dhan waa nabadda geeska Afrika oo dhan waxaan ka hadlaynaa waxaa naga ballana annagoo shacabkeega u daacada inaanan marnaba indhaha ka qarsan baahida guud ee geeska Afrika taal baahida guud ee dadka Soomaaliyeed haysa annaku shacabka Soomaaliyeed ee koonfur waxba uma haysano haddii ayaan daro dhacday hadda karis xuliyana wax kula maamulka xamar jooga ma aha annaka qura wuxuu xiilayo ee duudsinayo annaka qura ma wala xamar buu duudsiyaya saa wax gacanta ugu jirtaba ma ay jirtay waxaanu rabnaa dadkaana inaanu xusuusino quray awalna annaka u dhimanaynay haddana annakaan ka marin habaabaynin waxa ummadda dadka shacabka Soomaaliyeed waxa uu istaahilo annagaan ka marin habaabay hadda laakiin rabba waa ku rageed annaka iyo shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland dad hadda la isbaraya manihin wardad ka ab wada deganaa dhulka wadaaga dhalasho wadaaga danaha iyagu si loo kala saara oo badan baa jiray hadda taa macnaheedu ma aha indhaha inaan ka qarsanayno maamulkan maanta jooga ee Soomaaliland ee saaxiibkay Axmed Siinaaye madaxda uu ka yahay hadda intuu noo gaarsiiyay ilaa waqtigii daraawiishta waxna gaarsiiyay ma jiro dhibaatada ayna gaarsiiyaan waa ognahay waa ka dheregsanahay مسؤولية بان الله إدمضي مسؤولية بان الله إدمضي قضبضوا يقول مهم سنة وحيا هاي مدين حرين
ومركز الاسكسو حوريو نقونيا سيدي ومدى كل قنصول سناقي يعني مرير خاطبه أي مستقبل كوده يلروشوا ذا يويل كوده ويل كيس سيدي أي تلوه يمحن كوده أي يلان لهايين الهرمر كوده يمحن كوده اسمها دقانة دوده يمحن كوده نروشوا ذا تين وايد من التاسع يعني وحان نجاقو وعن قرصونين وعن ننقرنين دريس كستا يوضا كستا وأن نكو قاري كرنو وإحنا الوايد نوي وأنا يقو أنت وحانو ضدك خير خاطنو يكو ولا عيان من الهبلاء لآذي ورمي الهبلاء واضح عين أبوه هذا الرجل جيلك ورابي تري ماشي اللي تجميل تبغى معها هذا يا رجال تفرجين الرجل جيلك ورابي وأقول تجي الذي اللي كمل ماشي اللي تجي سك استوى الله تفرجين مال والله بواي نرجسه دنت ومضة غير خاطبه وحال يجوا أنا أوترنا وحال يجوا أن الرنكس تأقلب سنة أنا من الروح وحال يجوا أن wax kasto aan la dhikaray inaan u lugno sababtoo waa balantii aan qaadnay waa wixii lagu dhaariyay laakiin u tagmayno oo u marimayno sidaad hore u barateen ama aad u arki jirteen kii aan warbaahinta ka sheegay shantii bishii 8aad 2016 ee aan golaha baarlamaanka isugu yeeliyay ee aan caynka ah wuxuu ahaa midaan ku badbaadinayo inaan khasaare ka dhicin dadka kan oo aan dhibaato qoyseed iyo mid siyaasadeedna saameyn naga yeelan dhibaato arrimaha la wado ee harraahna laga keenay waxaan ku badbaadinayay ummadda reer Khaatumo inaan wax la isu gelin oo dad kale oo dhaqaale laga soo toba tuuray oo malaasii shaqadii bay ka dhamaanaysa hadii la wada hadlo ama la heshiiyo ninkii iga duubayay kanoo ah war waxaan cadeynayaa wuxuu nin dabadood ka degay meel uga tooboon buu waayay meel aan istiraada xal kalaad u maraysaabaan waayay markaan arkay maaskii soo jeeday waxaan leeyahay war ninka haddaad doonayso inaad qabato waa lala qabaama war wax badan baan ku qabanayay ninkii ujeeddo kale ka lahaa waanu isgaranaynaa إلا المركز ورك سيد دايي رك بدن بعد تطلع بعد صحيح أما الدولة هتشوجين أما هتشوجين معمول الله حرارة برلمان كي أنا سويه عليه ظروف تاعي كلفتي وحبان بدبالين يي ورجويه نيكو كاسبناه أنت عين ورشل دمية أنا ظروف تاعي إمارسي ودك سهلا بنواي أرن كاسنا عين كاوي وعن برشة ريقاتمو وبلن قاضينا إن أن شرفته مركز حتى لو حاجوني إن أنا حاجة ضعيفة قولي دته وقو حاجة قاضي يعني وبلن قاضينا وعن وبلن قاضينا إن أن شرفته ده كرامته iyo xaqooda xuquuqdooda aan ka soo kadhicin aan raadno marka aan taaleeyahay hadii aanu si liidata u xaajeysano dadka aan iska horjeednay dagaalku waa noocyo badan yahay xabado kaliya ma xaajada yaa nooc dagaal ah war hadii dalka iyaga bar la qabsaday walaa xaajada aanu kala bar la kala lagu qabsan maayo waa uu xisaabta u soo saartay خاطمة هذا حساب تسدح الدولود تقال كذا ما أود هذا حساب تنتي سدح الدولود تقال كذا ما أود ها وحانو قرأوا سني إنا بل ورمها درع والبلقاءة أن كدينا إنا سياسة حلوه الكرم وحانا تبلون الكوي حبدوا اللي قد حيسي dalkan isku haysanay
aan ku dagaalamayna nadxiile kuwaas aan ka bilowday wada hadalkaas saad sheegaysa adeero waa dhacay caynabuu ka dhacay waa hordhaca wada hadal dambana waa dhacaya ama mid labaad iyo mid saddexaadba waxaan rajaynaynaa sida uu ku socdo haddaan qiimayno in uu ku dhammaado guul inta ka horeysa wada hadalka labaad oo dhici doonana 1 iyo 2 iyo 3 qodob oo hadda cid saxaafadda uga sheegayna ma jirto laakiin nin kastoo la dhageysanaya reer Khaatumo iyo mid kalaba waxaan leenahay wada hadal wacan baa noo socda ilaahayna waxaan ka baryaynaa waliba inaan ku guuleysano 2016 waxa aanu ayadoo noo imaday oo hormoodka yahay madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo dhammaan golayaashiisa aan ka mid noqday anaa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Khaatumo in aanu wada hadalkii koowaad ee hordhaca ahaa ee maamulka Khaatumo hadda si fiican u dhageysta maamulka Khaatumo iyo maamulka Somaliland ay face to face isu hor fadhiistaan kaas oo macnaheedu ahaa in kaasoo macnihiisu ahaa in annaga iyo maamulka Somaliland oo wax aad u fara badani ay naga dhaxeeyaan dhinac kastaba in aanu u gobol xaadno ama bilowno wada hadalkii ay go'aansadeen maamulka Somaliland iyo maamulka Khaatumo inay ku wada hadlaan oo ay kaga wada hadlaan wax kasta oo dhex yaala sidii ay ugu soo dabaali lahaayeen sida caqliga sax yahay sida saxa sida ay dani ugu jirto bulshooyinka maamulka Somaliland iyo bulshooyinka maamulka Khaatumo of Somalia waxaana halkaas ka dhacay goobta magaalada Caynabo la yiraahdo isaragii koowaad waxa uu dhacay si aad u qurux badan si wanaagsan si yeelan karta idiilo iyo dhiirigelin inay sii socdaan wada hadallo kale oo ka sii culus oo ka sii maskab weyn oo ka sii madal ballaaran inuu sii socdo hadalkaasi ayaa nooga soo baxday in ay dhiirigelintaasi tahay sidaa awgeed waxaan doonayaa oo ku soo gabagabeynayaa inaan bulshada Khaatumo iyo bulshooyinka kaleba u caddeeyo in ay halka hawshii naloo idmaday ee ahayd ummaddan dadkan iyo dalkan ku nool sidii ay uga mid noqon lahaayeen uga xaan lahaayeen in bulshada Soomaaliyeed ay ka yihiin qaybtooda dalka waa ogtiin burbur baa dhacay dawladda shakiga badan ha la iska saaro meelaad joogtaan bana mashruucan wada hadalka Somaliland iyo Khaatumo hala taageero meelaad joogtaan waxaan shacabka reer Khaatumo meelay joogaanba ka codsanayaa kuwa khaladka loo sheegay kuwa miidiyaha tegay kuwa sida khaldan dhigta ay ugu saareen maamulada hareeraha inaga xiga qaar shaki ka qaba kuraastooda in laga qaato iyo kuwa xasarad mooye wax kaleba aanu toogin ee shalay miidiyaha tegay ee sida khaldan wax loogu sheegay waxaanu filanaa oo ilaahay idankiisa aanu filanaa waxa jira ee xaqiiqada markay ogaadaan inay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee taageera mashruuca wada hadalka iyo nabadda ee ay hormoodka ka tahay dawladda Khaatumo waxaan u sheegayaa intii aanu sharafta isku lahayn odayaasha ahayd ee aniga ahaa ee shalay miidiyaha tegay
waxaa ka fiicnayd inaad war qaadataan inaad noo timaadaan inaadna waxna weydiisaan wax dhibaato ah oo idin imanayaana ma jiraan caloosha iyo niyaddaba xajista oo hawsha qayb ka qaata odayaashana intaasaan leeyahay waxaan naftayda faraya anigu xukuumadda kama tirsani maamulkana kama tirsani laakiin muwaadin khaatumaana waxaan ballan qaadayaa inta hawlahaasi socdaan af iyo adib inaanan kala hadhin ilaa ay midho dhasho mansab iyo manfac min cid ka doonaysaa ma jirto xuquuqaal baynu dhammaanteed isu wada nahay الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد halkan anigoo maxamed cali barre xariir waxaan anigu ka mid ahaa raggii caynaba timi wixii ay xukuumaddu ka hadashay madaxweyne ilaa iyo dhammaystir iyo golayaasha xukuumadda khaatumo anigu kama midihi waxaanse ka mid ahay dadweynaha khaatumo waxaanaanu ka qayb galnay shirkii caynaba markaanu ka qayb galnay waxaana looga qayb geliyey in aanu dowladda maamulka khaatumo waxyaabaadka uu qabanayo iyo ciddii wax la qabanaysa arrini ka dhaxayso dadweynaha yaga inaanu wakiil uga ahanoo dhegaysanno yaana looga dhigay markhaati fur saasaanu annagu ku tagnay maamulka khaatumona noogu yaadhay inaanu dadweynaha yaga annagoo ka wakiila oo wuxu sheegayna oo wixii dibintaabiye ah eegayna wixii saxana u eegayna inaanu uga markhaati noqonno yaanu uga qaybgallay annagu marka aanu sidaa ahayn ee aanu golo tagnay sida laga hadlay ee magaalo meelaha loogu kala dhuundhuuman jiray waxaad ku tala gashaan ninka raggayagii halkaa tegay ama dee odayaal ha noqdo ama xukuumad ha noqde dee meel wax lagu baadhanayo ama hunguri loo tagay waa taqaaninta laysla rafanayo iyo intay qaadato annagu habeenkii aanu tagnay ee sariirtayada ka kacnay habeen labaadkiina tayadii baanu soo seexan waxaan idiin sheegaynaa markii aanu quraacanay sidii dadka ilbaxay ama hore u maray uu ku dhaqmi jiray baad moodi ilaahay inuu noo daadahaynayay markii nala dhaweeyey ee aanu shaahaysanay waxaanu bilaabanay hadalkayagii oo noo diyaar garaysna markaanu halkaa ka bilaabannay mar wax la cunayay nooshaanay ilaa aanu soo baxnay ilaa halkaa waxaanu ku jiray danaha labada maamul ee maamulka khaatimiya ka somalilan